kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kiimba meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah Ruushka oo qirtay in qasaar uu ka soo gaaray dagaalka ka soconaya dalka Ukraine faahfaahinadii ugu dambeeyay ee dagaalkaas ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal qodobada warka ku jira waxa kamid ah Soomaali ku xayiran xuduudda u dhaxaysa Ukraine iyo Poland haddaba waxyaabaha ay wajahayaan warka ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada warkan idinku heena waxa kamid ah Putin oo la xasuusiyay in reer galbeedku ay haystaan hub nuclear warar arintaas la xiriira ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada warka ku jira waxa kamid ah wafdi ka socday Ukraine oo gaaray xuduudda dalka Belarus Ukraine oo mahadisay diyaaradaha droniska ee loo yaqaan Bayraktar sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha Belarus oo codsaday in dalkiisa loo soo daabilo hubka nuclear-ka Russia qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay Ruushka ayaa qirtay in qasaaro lixaad leh uu ka soo gaaray dagaalka ka soconaya dalkaasi Ukraine wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa barteeda Twitter-ka ku soo qortay warbixin sirdoon oo ku saabsan xaaladda dagaalka dalkaas Ukraine warbixinta ayaa lagu xusay in inta badan ciidamada Putin ee dhulka ay ku hareen in ka badan 30 kilomitir waqooyiga magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine waxaa laga hor istaagay ciidamada Ruushka ku siqista dhanka garoonka lagu magacaabo Hostomel taasi oo muhiim u ah Ruushka dagaal culus ayaana ka soconaya agagaarka halka lagu magacaabo Chernihiv iyo waliba Kharkiv si kastaba ha ahaatee labada magaalo ayaa wali ku jira gacanta Ukraine waxaa jira isku dayo lagu doonayo in lagu xakameeyo xogta dagaalka ee ka imaanaysa dadka Ruushka ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa markii ugu horeysay qasab noqotay inay qirtaan qasaaraha soo gaaray ee dagaalkaas ka soconaya dalkaasi Ukraine waxaana xilligan wasaaradda gaashaandhigga Britain ay sheegaysaa in xogo sirdoon oo ku saabsan xaaladda dagaalka Ukraine ay tilmaamayaan in inta badan ciidamada Putin ee dhulka ay ku hareen in ka badan 30 kilomitir waqooyiga magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi Ukraine waxaana ciidamada waddankaasi Ukraine ee militariga xilligan ay hor istaageen ciidamada Ruushka inay ku siqaan garoonka halkaasi ku yaala iyadoona dagaal culus halkaasi ay ka soconayaan gaar ahaan magaalooyin dhaca waqooyiga waddankaasi Ukraine iyadoona sidoo kale laba magaalo xilligan ay gacanta ugu jiraan ciidamada dalkaasi Ukraine dhanka kalena Soomaali ayaa ku xayiran xuduudda u dhaxaysa Ukraine iyo Poland xadka u dhaxeeya dalalka Ukraine iyo Poland ayaa waxa ku xayiran Soomaali aad u tiro badan iyadoo sidoo kalena ay ku xayiran yihiin dad kale oo fara badan Axmed Cabdullaahi oo aan kula xirinay qadka telefoonka isagoo markaas ku sugnaa xadka Ukraine ayaa sheegay inay soo lugeeyeen 40 kilomitir waxa uu intaas ku daray Axmed inaanay sahlaneyn isaga tallaabista xuduudaha Ukraine iyo Poland isagoo xusay in ajnabiga iyo muwaadiniinta dalkaasi Ukraine la kala soocayo Axmed waxa uu carabka ku dhiftay inay tiradoodu ay gaarayso Soomaali ahaan 150 qofood iyagoo isugu jira rag iyo dumar waxa ay isugu jiraan Soomaalida ku sugan Ukraine arday wax baranaysay iyo waliba kuwa qaxooti ahaa ma jiraan wax qoysas Soomaali ah oo dalkaasi ku sugan dad aad u tiro badan ayaa waxa ay taagan yihiin xuduudda u dhaxaysa dalalka Ukraine iyo Poland iyadoona dhibaatooyinka ka soconaya dalka Ukraine ay u sabab yihiin in dadka qaxootiga ahaa ee dalkaasi ku sugnaa ay gabi ahaanba isaga cararaan oo dhibaatooyinkaas ka soconaya dalkaasi Ukraine saameynta ay ku yeesheen dhanka kalena Putin waxa la xasuusiyay in reer galbeedku ay haystaan hub nuclear madaxweynaha Ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa nuclear-ka ay heegan sare ay galaan si ay dunida ay u xasuusiyaan inuu leeyahay hubka wax gumaada ugana weeciyo indhaha dagaalka uu ka wado Ukraine sida uu sheegay xogayaha gaashaandhigga Ingiriiska Ben Wallace waxa uu ka sheegay barnaamijka BBC Breakfast in ficilada Putin ay cambaarayeen beesha caalamka waa inuu ogaadaa Putin xaqiiqada ah in saaxiibkiisii kaliya xilligan uu u muuqdo inuu yahay madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko waa in uu garwaaqsadaa inay hubaal tahay inuu taariikhda dhanka xun uu ka galayo ayuu yiri waxa uu sheegay xogayaha difaaca ee Britain in dawladda Ingiriiska aanay u muuqan wax isbedel ah oo ku yimid mowqifkii nuclear-ka ee Ruushka
waxa uu intaasi ku sii daray Ben Wallace Ingiriiska sidoo kale uu yahay awood leh hubka waxgumaada ee nuclear-ka iyadoo ay tahay in Putin uu ogaado in wax waliba oo ku lug leh hubka nuclear-ka ah in ay ka wadaysaman yihiin halka reer galbeedku ay leeyihiin quwad ka ballaaran Ruushka marka ay timaado nuclear-ka sida uu hadalku dhigay. sidoo kale waxa uu carabka ku dhiftay xogayaha in dowladda Ingiriiska aysan qaadi doonin tallaabo ugu sii darta xaaladda taagan ee cakiran balse hadallada la isweydaarsanaya ay tahay dagaal afka ah isagoo ku taliyay in si wanaagsan dhibaatada jirta loo maareeyo. waxaana dowladda Britain ay ka mid ahayd wadamada sida weyn kaga soo horjeeday duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkaas Ukraine. waxaana ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu kal hore uu ka sii digayay in laga yaabo in Ruushka uu weeraro wadankaasi Ukraine. waxaana xukuumaddiisa ay dhowr jeer oo hore ku celelisay in xayiraado iyo cunaqabateenaba ay ku soo rogayso dowladda wadankaas Ruushka kadibna ay ka dhabeeyeen markii uu weerarkaasi uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. dhanka kalena wafdi Ukraine ka socda ayaa gaaray xuduudda dalka Belarus. wafdigaasi waxa ay ka qayb gali doonaan wadaxaajoodka nabadda ee la yeelan doonaan wafdi ka socda dowladda Ruushka oo iyaguna shalay gaaray dalkaasi Belarus. hadal qoraal ah oo baarlamaanka Ukraine uu soo dhigay bartooda Telegram-ka ayaa lagu sheegay in wafdiga Ukraine uu hogaaminayo wasiirka difaaca dalkaasi Oleksiy Reznikov. wafdigaasi waxaa sidoo kale ka mid ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda, la taliyaha madaxtooyada Ukraine iyo sidoo kale xubno kale. waxaana xilligan la warinayaa in mas'uuliyiintan kala matalaysa wadamadaasi Ukraine iyo Ruushka ay ka wada hadlayaan dhibaatooyinka iyo dagaalka xilligan ka soconaya dalkaasi Ukraine. dhinaca kalena Ukraine ayaa waxa ay maadisay diyaaradaha droneska ee loo yaqaano Bayraktar. dinjiraha Ukraine u jooga Turkiga Ambassador Faisal Bodnar ayaa sheegay in diyaaradaha droneska ee loo yaqaano Bayraktar laguna farsameeyo Turkiga ay door firfircoon ka qaateen dagaalka ay militariga dalkiisa kula jiraan ciidanka Russia ee duulaanka ka wada gudaha Ukraine. sidoo kale Ambassadorku waxa uu hadalkaasi maanta ka sheegay caasimadda dalka Turkiga ee Ankara. waxa uu xusay in diyaaradahaasi ay ku tijaabiyeen dagaalka. Turkiga waxay sanadkii hore Ukraine ay ka iibiyeen diyaaradaha droneska ee Turkiga lagu farsameeyo gaar ahaan nooca Bayraktar TB2. militariga Ukraine waxa ay horey diyaaradahaasi u adeegsadeen dagaalkii gooni-goosadka ku sugan bariga Ukraine oo ay Ruushka taageeraan. dhinaca kalena madaxweynaha Belarus waxa uu codsaday in dalkiisa loo soo daabulo hubka nuclear-ka ah ee dowladda Ruushka ay haysato. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa sheegay inuu madaxweynaha Russia Vladimir Putin ka codsan doono in hubka waxgumaada ee nuclear-ka lagu soo celiyo gudaha dalkaasi. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee TASS ayuu sheegay inuu hubkaasi dalban doono haddii ay isbahaysiga NATO ay hubka nuclear-ka u soo daabulaan dalkaasi Poland ee xuduudda la leh Belarus. hadalka madaxweyne Alexander Lukashenko waxa uu ku soo beegmay xilli uu madaxweynaha Russia heegan buuxa geliyay ciidankiisa difaaca hubka nuclear-ka. isbahaysiga NATO waxa ay qorsheenayaan inay 100,000 oo ciidan ah iyo waliba saanad military ay u soo daabulaan qaar ka mid ah dalalka ku yaala bariga qaaradda Yurub. guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. tan iyo kulantan dambena waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.